السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داودياش قيمها يقدرين تمدن لأن داونا يو إذا هانتين بقى ملكستوا جوكتان وحد كسر دواتان شروينها صدحات أورو كميدوجا لأن يرد يرديد وغادية وكان عاي مقالة سان دييغو قبل كاليفورنيا عريقة مريكان كا الشركة أي وحى كسوق يقري مرتي يو وليبا وفود فربضان أو ككلتمد دولي دا تعالى ذا waxaanan fursad u yeelanay in aan la kulanno waraysiyana aanu ka qaadno qaar ka mid ah dhinacayga midig waxa taagan Maxamed Sheekh Cabdi Aar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Minnesota oo isagu u yimid inuu ka qayb galo shirkan mudane gudoomiye ku soo dhawow aad iyo aad baad u mahadsantihiin qabanqaabiyaasha waan ku faraxsanahay soo dhaweynta qaaliga soo dhaweyseen waan dhawahay maaragtay insha Allah aad waan ugu faraxsanahay gudoomiye North America shirkan OSU waan markii koowaad fursad u yeelato in lagu qabto shir noocan oo kale fursadaas ka waran wuxuu loo sheegay fursadan waa fursad qaali aan leeyahay sababku waxa weeye North America gaar ahaan United States waa powerful ka maartay adduunka meesha hadda maartay ugu wada badan marka in lagu qabto hadda ka hor Europe iyo qaaradahaas oo maartay ayaa lagu qaban jiray marka fursad qaali ah baan u arkaa oo in fariintan United States la geliyo iyo North America aad baan fursad weyn baan u arkaa guul weyn oo la taaban karo oo tahay qadiyada ogaadeenaya inuu maanta fariintii la soo gaarsiiyay United States aad baan guul weyn baan filayaa ka soo baxdo maaragtay weyn ka qabo sax weey gudoomiye waxaad ka mid ahayd muxuu ahay madaxdii ka timid Minnesota gobol dhan waxaad matashaa kumaan kun oo Soomaalida ogaadeen ay degan yihiin shirkana waxaad u timid inaad ka qayb qaadato khibradda aad kula qaybsato dhalinyarada iyo wufuudda ka soo qayb gashay maxaad rajayn lahayd ama aad kula talin lahayd ama aad jeclaan lahayd inaad ku aragto shirkan waxaan rajaynayaa shirkan inuu wax weyn oo qaali ka soo baxay because waxa weeye madax sare timid shirkan waa laba qaybood qayb waxa weeye waa aqoon kororsi dadka isku yimid faraha badan in seminar gareeyo lagu educate gareeyo qaybta labaadna waxa weeye waa shirkii ururka dhalinyarada doorashadiisii iyo dib u habeyntiisii xeerarkii sharciyadiisii marka gobolka Minnesota iyo Mareykanka iyo adduunka oo dhan rajo weyn baa laga qabaa wax weyn oo ka soo baxo aad baan maartay inaan guul weyn la noqono oo soo dhaweynay sax weey waxaad iga warantaa soo dhaweyntii bal magaalada soo dhaweyntii iyo ka waran soo dhaweyn aniga wariga waftigii ka timid kala Minnesota aad u farax gelisay وانا عرق مارتي تنا كلا هذا كهر أيام سوى دوية مارتي سي لو سوى دوية إيربوت وفتي كسوك وتيلا تيجي قرشين تبلانجرين أد بعد مارتي ويا سوى دوية قارن كلا كلنا أنا وفتي هالك كتيمد يو قبل هذا كلا يدون كبيحين كريمين وحاجرب كي يتعين مدانا عبد الناصر حرسي أحمد ويسوى فود كسعتي قبل كمينوسوتا وأنا قدوميها أبابك يا رماها برشلة إيجارية مينوسوتا عبد الناصر كسر له برنامج كوم لبع وحد كم بتهاي وفودي كتب من Minnesota والكور الشركة اللي قابدي سويه النظام الصعودي وحير مالت نوعتها رون هانتي يا دنمارك وهر صورت أو مهبعلينا جديدي أو قابيه هوشان قعنت كوهاي لا يهدا وهرتنا لقاركود فديان يو ميديا هذا كل دوينة محوها هاي ومدن ولا هاي مرور بنا سيها غرلان iyo haqabtir ah u gaarsiiyo umada aad iyo aad baan marka ugu horeysa u mahadcelinaynaa marka labaad waxaan ka mahadcelinaynaa reer San Diego oo dhan sida ay noo soo dhaweeyeen sharafta leh walaalnimada leh kalgacalka leh wadaniyada leh kartida leh adkaysinka leh ay saacado fara badan iyo saacado xun oo waliba late ah noo taagnaayeen maartay garoonka iyo dhibka iyo hawsha ay galeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa أنا لين محوها إلى بعدك جايزين دون إن شاء الله. مدير جاني حقيقة نوجور الشركة يوصلوا الصعود بالهذا سوف يوصلوا الصعود. الشركة يوصلوا الصعود إلا أي هذا سي شركة لوقر شيء شركة صارت كور هيسام بعالم أويان دون كوردان ليس جاي يمد على ذي صدق حسام ومر لقبته سيدي وشيء قدومي هرانا محوها حسابتن يدي بسحيد شرعي قرين iyo nidaamين weeyaan marka sida uu socdo marka ku soo noqdo runtii waxaan dhihi karaa yani sidii loogu talagalay
wax ka zaa'ida mooyaane wax naaqosa ma jiraan wax kasta sidii loogu talagalay bay u socdaan guddiyadeedii iyo farsamadeedii iyo nidaamkeedii branch kasta qaybtiisii buu qabsanhayaa sida uu loogu talagalay ee loo qorsheeyey wuuna ku dhammaan doonaa insha allah oo guul ah wax kasta keligiina ma aha barnaamij kasta oo ay soo qaadaan muxuu ahaa arrimaha bulshada iyo muxuu ahay laamaha bulshada kala duwan iyo madaxda jabhaduba qorshe iyo nidaam baa la dejiyaa saad u ogtihiin inagu ma nihin maaragtay urur waxaan kasoo tagnay dhowr iyo 10 sano ka hor dawlad baynu nahay weliba dawladaha adag siday wax u qorshaystaan ee tiknoolajiyada casriga leh iyo dhaqaalaha xoogga leh sidoodaynu maaragtay waxaanu noogu qabsoomaa siday ahayd banu qabsoomi doonaa insha Allah guul weyn baana kasoo bixi doonta daawadayaal annagoo bartamaha kaga jirna waraysiyaal nadanadii wafuudii ka timid dawladda dacaladeeda ka soo qayb galaysay shirweynaha saddexaad ee urur weynaha OISU waxaa garabkayga taagan sidaad aragtaan waa Cumar Maxamed Aadan Cumar Yare oo isagu ahaan jiray gudoomiyihii hore ee jaaliyadda Minnesota haatan u wareegay dhinaca iyo Texas waa Dallas baan filayaa gudoomiye ku soo dhawow barnaamijka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana dhowahay guud ahaan iyo gaar ahaan bana waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana dhowahay وعليكم السلام gudoomiye waxaad ka mid ahayd wafuudii ka timid Texas حفلة شرعي سو كشان كور السفر كاجي والواحد يرمو يتتابع السفر كاجي زابها الله كلنتي انت هذا الجود aad baad u mahadsantihiin guud ahaan gaar ahaan media aad baan gaar ahaan u soo dhaweynaya haddaan safarkaygu ka horeeyo horta safarkaygu markaan barbar dhigo safarada kuwa dadka maanta reer ogaada iyo ku dhex nool ay safrayaan safar wuxuu ahaa dee aan la odhan karin safar buu ahaa nin intuu fadhiyo haddana meeshuu ku socday gaadhay baan ahaa qodobka labaad kale waxaan ahaa anigu hadda waxaan joogaa Texas gaar ahaan magaalada Houston magaaladaasaan joogaa intii hadda 9 bilooda horeyna adaa way shaqadiyo reemaan soo dhanaha ama dadka dhan baa ogaa aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo shirweynaha ee ka dhacaya magaalada San Diego gobolka California aad baad u mahadsantihiin daawadayaal waxaa garabkayga taagan waa Khadar Maxamed Colaad oo wada garanaysaan waa Roble oo kamid ah dhalinyarada ugu firfircoon ururweynaha OISU sidaad Khadar uga barateen riwaayado horena wad ku aragteen heeso fara badan oo qaadeen dabcan waan filayaa inaad ku raaxaysateen oo sugaan halgameed aad uga qayb gala Khadar waa saaxiibkay qaalay horta ku soo dhawo barnaamijka aad baa mahadsantahay okay Khadar waxaad nooga warantaa waxaad kamid ahayd dhalinyaradii fara badneed ee soo dhaka timid waxaad u timaadeen shirweynaha aad iyo aad wax yar nooga taataabo nidaamka iyo qaabka soo faar u socdo wax yar nooga taataabo aad baa mahadsantahay mudan Cabdiraxmaan Huluul adala firkaaga iimayl lidatida aad baa lagu yaqaanaa runtii iyo qoraxa media maaragtay waraysiga qiimaha badan aad baa ugu mahadsantihiin waxaanu u nimid inaanu ka soo qayb galo shirweynihii saddexaad ee ururka midowga iyo ardayda ogaadeen ee loo yaqaan OISU oo sanadkan ay martigelisay ururka magaalada San Diego oo runtii si fiican loo soo dhaweeyay shirkan oo sanadkiiba hal mar la qabto oo waliba dheer tahay doorashadii xogayaha guud ee maaragtay caalamka lagu dooranayo 3 sano u dambeysay oo soo hayay mudane mujaahid iyo 3 sano ee dambana loo dooran doono haddii la yiraahdo marka sabaha naga soo qayb galay waa shirkii sanadlaha runtii aad baad u mahadsantihiin sida qiimaha badan ee noo soo dhaweysay aad baad u mahadsantahay waxaad ka dhawaajisay doorashada doorashada adduunkan waxaad moodaa in aad doorashada loo hadlayo aad iyo aad haddaan wax yar aad ku dhaado aan spotlight-ka ku yara geey xaggeed u malaynay waxaa la laba musharax baa meesha taagan waxoogaa iska politics oo dadku waxay jecel yihiin inay maaragtay ogaadaan resultskii hawlaha sidee baad maaragtay u aragtaa soo far meelo badan waa laga codeeyay marka bal sidaad u aragtaa oo maaragtay hawlaha maxaad kala socotaa soo far runtii si dawladnimada muddaani maaragtay soo far kambeynadu socdaan iyo doorashooyinku dawladna waynu nahay runtii oo maaragtay maanta waxa lagu qiimeynayaa xubin kasta maaragtay waxbarashadiisu meesha gaarsiisan tahay aqoontiisa heerka halkanka uu maaragtay kala yahay doorashaduna caalamka kala dhaway ka soo dhacday laakiin inaga maaragtay codeyn doona marka runtii aanu maaragtay codkayga waan qarsan doonaa waxa ka soo bandhigi doonaa goobta la yiraahdo laakiin waxa rajeynayaa labada mas'uul ee tartamaysa inuu maaragtay midkii maaragtay sanadka 3 sano soo socotay inuu hogaamin inuu soo bixi doono haddii la yiraahdo waa sax waxaa jira inaan waxyaabo badan baa lagaaga bartay suugaan halgameed ha ahaato riwaayadaha ha ahaato waana caan baadna adduunka ka tihiin oo dhalinyarada inta badan hawlahaas waxaa weeye marka dad badan waxaa jira xiiseynaya idinka ku dhiin ilaashinkiina ad imanaysaan
laga yaabaa markaa inaad dadweynaha waxyaabo maaragtay diin dhaqankii wax ka oga siisaan mise دوركم واحد كل ده مركي اللي سيمات دي دغل لما دحواي موقت صح marka maadaama uu shirweynaha uu loo soo diyaar garoobay runtii maaragtay hawlahaana de waa inaga waa idii dhaqanku waa ku dhabartay waxa weeyaan reer ogaadeen idii dhaqanka lagama waayo marka waxaan jeclahay in kulli la soo bandhigi doono hadii Ilaahay raado shirku wuxuu furmayaa berita aroorti hadii Ilaahay raado maxaad u malaynaysaa inuu ka soo bixi doono shirkan runtii shirkan oo aad loo wada sugayay dhalinyartuna ay u soo diyaar garooday waxaan filayaa in action balankii 3 sano soo socda lagu dejin doono shirweynaha waxa iyaguna isla jooga maaragtay madaxdii u sarreysay jabada deegaanka xareed togaadini oo iyaguna bixin doona seminaaro marka qof kasta oo opportunity-gan hela inuu ka soo maaragtay qayb galo wuxuu ka faa'iidi doonaa maaragtay tacliin fara badan iyo aqoon badan oo heerka marba halkiisa uu gaarsan yahay oo kor uga sii soconaya hadii Ilaahay raado marka shirkan loo kala kicmaayo Cabdiraxmaan hadii Ilaahay raado waxyaalo badan oo manaafacaad leh oo maaragtay 3 sano u dambeysay dhalinyartu ay higsitaan uu ka soo bixi doona insha Allah adiga hadda su'aal gaar ku weydiiyo waxaad ka mid tahay madaxdii North America hawlo badan ilaa waagi oo waa dhalinyaradi ku jirtay badan aad iyo 3 sanana oo way soo jirtay 3 sano oo tan baa hadana dib loo dooran doona xogayaa sax maxaad u malaynay adigu isbedel ahaan inaan arki doono wada rajaynaysaa runtii waxaan filayaa isbedel weyn iman doono sababtoo ah ururku saas sheegtay bariga hore magacyo fara badan baynu kala haysanay OYL OSF OYL baa la kala ahaa kadibna ururka midowga iyo ardayda ogaadeen OSU baynu ku midoonay marka 3 sano u dambeysay waan ku cusbay maaragtay ururka oo de dhalinyarada fara badan oo dacalada adduunka ku kala nool baa ku midooday marka hadda in experience badan laga qaatay 3 sano u dambeysay oo ururku hore u sii socon doono isbedel weyn oo iman doono yaa filayaa hadii la yiraahdo hadda maaragtay qof marba qofka ku soo baxa doorashada hadii la yiraahdo ما شاء الله بأد ما كل وقت فيليا فرح والله كاد بارك تاد ما كل قولوا وين هاي دنقاشي ما شاء الله آمين إن شاء الله السلام عليكم وحقرب كي تعال صالح محمد صالح ما شاء الله مقع مسكين لك ما welcome to the show bro how you doing I'm doing very good so tell us about your trip. Okay. You're from Dallas, right? Yes, I'm from Dallas, and we came, OISU, Texas, came together from Dallas, some people from Houston. We drove all the way down 1,400 miles. We had a great trip, and mashallah, alhamdulillah. And throughout the trip, we got a lot of chances to reflect on the reasons why we're coming all the way from Texas to California in order to fight for our people and come together. This is a worldwide, everybody. So before you came, you had an expectation, right? Yeah, we had expectations. How was that holding up? And all the expectations are like we thought, people coming from 33 countries, people, Right. Adds to the pressure, right? Yeah, it does add to the pressure. Yes. What are you hoping to get out of this? We're hoping to get a lot of things out of this conference, and for example, a lot of ways to increase, to make ourselves better, make a better organization that can benefit our people, to bring the youth together, increase the ways that we can communicate and do more effective ways to raise awareness, advocacy and all sorts of things. Nice. A lot of people are not familiar with OSU Texas. Yes. I'm pretty sure you guys came kind of new to the scene. Yeah, yes we are. So, what do you want to tell them? I want to tell them, we have a very strong OISU branch in Texas, alhamdulillah. We've been around for about a year now, and we keep on growing, mashallah, and we expect to keep growing, And this, hopefully, inshallah, the conference will add to the, inspire us more, and, inspire the people back home and everywhere in the world, inshallah. waxaa garabkayga taagan maxamed saalax kusoo dhawo barnaamijka aad iyo maaragta kugu mahadcelinaya ka qaybgalaysa barnaamijka waxaad ka timid Minneapolis صح ما شاء الله أول شيء waxaad bal yar nooga tataabo safarkaaga hawsha sidee soo faarsay من صوره dad badan baa ku yimaaday dadka diyaarad bay soo qaateen arrin gaari bay soo raaceen marka aniga iyo 3 wiil oo kale gaari ma soo qaadnaa nabluq baan soo drive karaysa soo qaadnaa waa jidda baa xogaa jiddeer weey ilaa 6 hours mataqaanaa socda waa carruur adeeg oo la baahan yahay oo ay siisama exactly sababta wadankeena waxaa u baahannahay qadiyadeena dib inta doonto ha noqotay inaan u gallo bas waxaan raadinaa waa xornimo sax ciyaarna laguma helo waxaa u baahan tahay niyad adeeg iyo adkaysi iyo mataqaanaa sabir dheeraad marka always in Minnesota wallahi we excited
مثلا شركة أنا كسر طيب قالوا وحواليا ولايف تنشن مثلا conference which مثلا وطن كان يذكر مثلا عن طبعا واحدة وقبلنا أو مثلا شركة تواجه بدل OICU مثلا سنة صوص على وإلكشن كل عدانته مركا رجال مثلا وطن كان مثلا أدنى سريسا وحنوبة حنا مثلا مورين حوق سيسارو مثلا حكورنا أنت وحدير حكورنا على ديار لك لا سمعت على كم كان هالبنكر إني مثلا سفر كسر ديران صح مثلا زي مثلا مدة حقوقها ومثلا وبشر حلقة حفها ومثلا أنا هاي الوقت السلام عليكم أنا ورئيسيدي نحن كجسي جرنا وحاجرب كي تاجن إن كان لكم عصبان فريا وجينا وجوهر صار الله سعطان رواية ظفر بدل مكتب قاتي وهذه هالكيكة مركز لكم عصب جوهر تكون كل شيء سديو إن كستوا هذا هيدين قدي ظهر مرة شركة سيكو بالحال يورد طبعا قابل الشركة اللي هو حسين صغير واحد تدوينها ويرتاح. أنا ونسأل شكل عام عندي فرصة ورا شركة ما شاء الله وحنركي دمير فرضنا ilaa hadda qaar ay soo gaarayeen xaq adigu shakhsiyan xaq rajaysa shirkan uu ka soo baxo أنا كرجيني إنه ناقص وضح وحفي عن يعني أروح مدة سوى شقيني وشقة الصباح شركة كوات معها مركا إن حلكي علموا تشوفين هذا الله وسي وضع دستورك أوروكا إلا عن صحيو إن قرر سايد ولا شان قلبت أنا ما أعرف مشارحتها بتكمل لنا عن دوران كنت من برامج أوروكا يعني شبراين كنا وجودين قالوا مثلا كان أول بس دخلنا كده أو كنت تحتوي تكلمون يوم 3 years وحلا قبل لها يعني ما صار صوت أقول فينا ومركز بيجي كل دول ويا كلنا وبيجي عسكر دول بعد سلاح مثل صوت عملنا شيء كنا نسمع وصلنا معامل وسوي لنا بس لا يكون حلول اللي قاعدين مع كده قاعد لكن سوف مع سنة واحدة شخصيا إن شاء الله كل حال كم ده هيدتك بدل الانشري شر نوع عن الكرم إن مريكا ما كنت لو كنت ما دام شركي وويناي حتى قوري قارضها حتى المقابل حتى أي فرصة تنقل فرصة تكبر يوم والله تاس درين قاري وقت نولد طبعا شركي سويدن ذاك لو دورتي شركي تشرمن كما شيء لو دعوا قرن markii arinta dagaalka soo gashay ana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in barnaamijkan uu sheegay farashkiisa iyo nidaamkiisa ay qaadeen haddana inaan xubnaha kale maaragtay jooga Kenya kuwa jooga kuwa Suudiga jooga kuwa Suudaan jooga kuwa Afrika jooga kuwa Yurub jooga inaan codkeena gaarsiino nala qaybsadeen oo fikirkoodina aan ka soo qaadno codkoodina ay riteen oo sharci jeclaayeen doorteen adduunka ayaan gaarsiinay gobashana aan hadda aan oolin ma jirto fikradoodii oo dhan oo la soo ururiyay way yaalaan xeerkii oo baad iyagu ay soo asiyada iyagu ay ka soo baaran degan way yaalaan maamul madaxweynaha iyagu ay soo doorteen oo soo cadeeyeen way yaalaan marka hadda wax rajinay istaagay wax walba hadda saafooda maadaama cid walba processka cid walba iska dhaxarkayso kulahay iska dhaxarkayso fikirkeedu ku jiro processka inuu fududaado